internet awood leh iyo guryo casri ah sanadkan 2020 ma rumoobi doontaa riyada ah in awood xoogan oo xagga internetka ay dadka caalamku helaan toddobaadkan iyo kale Cusmaan Cabdi Xasan ayaa eegaya waxyaabaha ugu waaweyn ee aan filan karno sanadkan 2020 waa sanadka jiilka labaad ee isgaarsiinta telefoonnada habka loo yaqaano 5G horay ayay u soo baxday balse in meel kasta laga helo weli lama dhammaystirin dhammaan howlahaasi waxay hirgelayaan sanadkan shirkadda Apple waxay soo saaraysaa telefoonkeeda la shaqayn kara adeegga la yiraahdo 5G bishan September wax kasta si xawle ayay ku soconayaan goordhowna waxaa si toos ah looga heli karaa adeeggaasi filimada iyo bandhigyada telefishinada iyo cayaaraha kombiyuutarada waxaad filataa in guryo badan laga helo sameecadaha internetka ku shaqeeya ee lala hadlo adeegyo badan ayayna bixinayaan maadaama waxyaabaha internetka ay hadda si rasmi ah u shaqaynayaan agabka guryaha laga soo bilaabo kuwa cunnada lagu kariyo iyo gambaleelada albaabada ku xiran waxa ay ku shaqaynayaan internetka taasina waxay ka dhigan tahay in wax badan ay sahal noqdaan balse walaac badan ayay keeneen oo ku saabsan xogta gaarka ah ee dadka u qarsoon arrimaha kale ee walaaca leh ee ku saabsan waxyaabaha dadka u gaarka waxaa ka mid ah habka aqoonsiga wejiyada ma ahan oo keliya in aad telefoonkaaga ku furato wejigaaga meelaha guud ayaa lagala soconaya haddii wejigaaga uu ku jiro liiska kuwa la mamnuucay waxa ay tiknoolajiyadan kaa celinaysaa in aad gasho ruwaayadaha iyo garoommada kubadda cagta kuwa u ololeeya arrimaha dadka u gaarka ah ayaa ku baaqaya in laga joojiyo adeegsigooda goobaha guud balse kuwa taageersan waxa ay qabaan in ay gacan ka geysanayaan in dadku ay ammaan helaan sanadkan 2020 waa wakhtiga ay farsamada gawaarida korontada ku shaqayso horumari lahayd kadib sannado ay ciwaanada haysatay shirkadda Tesla la yiraahdo warshadaha gawaarida sameeya sida Ford iyo BMW ayaa soo saaraya gawaari koronto ku shaqaysa balse waxaa la filayaa in horumarkoodu uu gaabis noqdo gawaarida iswada weli wadooyinka kala sarreeya ayay sababtu tahay maadaama aysan farsamada hadda jirta la jaan qaadi karin inay taasi ka gudubto